manaa sida wada ogtihiinba waxaa social mediaha ka socday dood ka dhalatay barnaamij ay qabatay Universal sidaan maqlayna ugu maqaalaan Hargeysa ka dhacay doodaas oo runtii hadal hayn badan bulshada ka dhex dhalisay bulshaduna si kala duwan ay aragti bixiyeen ama siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen runtiina ahayd arrin xasaasiyad bulshada ka dhex kicisay waxaan rabaa marka inaan dhowr meelood kor istaago dabcan doodu kuma saabsanayn ninka iyo xaaskiisu sidee bay ku heshiin karaan ama sidee lagu xallin karaa buuq soo kala dhex gala ninka iyo xaaskiisa sidoo kale kuma saabsanayn ninku iyadoon xaaskiisu ogeyn yani ama isagoon wargelin ma la guursan karaa waxyaaba noocaas kuma saabsanayn dood waxay ku saabsanayd hal su'aal dabcan markaan si fiican dhageystay videoga dhowr iyo 30 daqiiqo soconaysan malaynayo hal su'aal buu ku meeraysanayay muhiimaduna aan jeclahay inay ahayd su'aashaas oo ahayd maadaama uu burburka qoysku aad u batay geyga Soomaalidu degto uu aad ugu batay yaa sabab u ah marka su'aal waxa la isweydiiyay wariyayaashuna soo qaateen marka barnaamijka daadihinayay ahayd in sodohdu door intee la eg bay ku leedahay qoyska yani inuu burburo door intee la eg bay ku leedahay marka su'aasha ahayd in la falanqeeyana dabcan su'aashaas ay ahayd qaabkaas inuu dhacaysay su'aashaas baan la wadaagayay sidaan dareemayay oo hadba qof markaas microphone loo dhiibayay oo dawra ahayd marka su'aashii waxa ka dhex dhalatay su'aal kale dabcan aan dhihi karo waa su'aashii keentay in bulshadu ay aad arrintaas uga falceliso buuqa faraha badan la dhalisay oo ahayd hooyadu ama sodohdu guriga markay imaanayso fasax bay u baahan tahay ma iman kartaa mise ma iman karto markay ashalkaas gaartay waxay noqotay in bahashi faraha ka baxdo buuq fara badan meeshii ka dhasho waxa muhiim ah in la xuso doodaha noocan oo kala ah oo dabcan bulshadu isugu imanayaan waxa muhiim ah in dadka lagu martiqaadayo ama dadka qaybta ka noqonaya inay noqdaan dad barnaamijka iyo waxyaabaha marka laga hadlayo xogogaal u ah dad wixii fahmaya oo xogogaal u ah runtii wax meesha ku jiray ahayd waan jeclahay dad badan waan dareemayay oo meesha fadhiya inay dad intooda badan inay xogogaal ahaayeen oo barnaamijka si fiican uga qayb galeen meesheedana dhigeen si fiican uga qayb qaateen laakiin waxaan dareemayay dad yar oo dadka kamid ah ka qaybgalayaasha kamid ah inay mowduuci ka baxeen taasina ay muujinayso in markii horeba xulashadooda iyo say ku imaadeen barnaamijka ka soo qayb galeen in aysan ahayn qaab laga fiirsaday oo barnaamijka marka dadka la soo xulanayo ma garan karo dabcan TV qaabka uu dadkan ku soo xushay ama dadkan ay doodka ka soo qayb galeen uma garan karo dabcan xataa waxaan dareemaynay in dadka qaarkood oo af Soomaaligu dhibay oo ku hadalka luqadda Soomaaliga ku adkayd hadda labada gabdhood markaad eegto gabar kamid ah af Soomaaliga ma garanay marka taasi waxay muujinaysaa xoogaa in meeshaas dhaliil ka jirto waxaa jirta dhaliil kale oo TV-ga iyo wariyaasha baan u jeedinayo marka su'aasha markaas meesha taala ama saacada taalay laga dhex baxo baashu kharij al-mawdu' noqoto wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu yani soo celiyo taas haddaan halkaas uga gudbo dabcan ma doonayo ama ma rabo inaan maanta ka hadlo ama aad ugu dheeraado muhiimadda ama yani waxa ay gasho iyo waxa ay guddo iyo diinteena heerka iska daagtay yani waalidka iyo birrul waalideynka heerka ay diinteenu ka taagan tahay iyo sida diinteenu uga hadashay iyo ku dheeraamayo waxaan jeclahay inaan wada garanayno oo inteena badan fitrada ku dhashay diin ku dhashay baynu nahay oo dabcan waa yar tahay qof Soomaaliya oo soo muslimiin ama soo islaamiye inay yartaan jeclahay marka ma doonay arrintaas inaan ku dheeraado hooyadu waxay gasho iyo waxay guddo oo wada garanayna waxaan kaloo dhihi karaa waa la si garan ogyahay marka la eego yani volume-ka ay ku fadhido ama xajmiga ay ku fadhido ama bulshada xajmiga ay ku dhex leedahay wax hadda aan meeshan ku soo koobi karno ama kaga hadli karno hooyo muhiimadeeda waxaan mowduuc iyo 2 iyo 3 lagu soo koobi karaa ma ilaahay quraankiisa waa kaga hadlay waalidka rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuu sheegay oo waa ka hadlay xadiis badan waalidku soo arortaa jirta gaar ahaan hooyada muujinaysana in waalidka loo birri falo loona ihsaan sameeyo rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa jirta mar la weydiiyay yaa ay wax xaqnimo badan rasuulku ugu jawaabay hooyada marka la weydiiyay yaa ku xiga man uu yiri hadana hooyada hadana uu yiri man markii saddexaad uu yiri hadana hooyada oo hadana yiri man markii ugu dambeysayna uu yiri abuk abaha
taas waxaad ka garan kartaa hooyadu inaysan wax la dhayalsan karo ahayn yani heerka ay taagan tahay iyo xuquuqdeedu in mid la dhayalsan karo ama wax la dafiri kara aynan ahayn. waxaa jirta xadiis Cabdullahi ibn Mas'uud uu rasuulka leeyahay ayu a'maal ahabbu ila Allah camalkeeba alla agtiisa loogu jecel yahay rasuulka Allah. rasuulku wuxuu leeyahay as-salaatu liwaqtiha, salaada waqtigeeda lagu tukado waa camalka alla agtiisa loogu jecel yahay. ku celinayaa wuxuu leeyahay maxaa ku xiga camalka ku xiga. rasuulku sallallahu alayhi wuxuu leeyahay birrul waalidayn, waalidka inaad u ihsaan fasho baa ku xigta. birrul waalidayn, waalidka inaad u ihsaan fasho baa ku xigta, waa camalka ku xiga, salaadii ku xigta. qur'aankana waa uu ka hadlaya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ihsaana wawasayna al-insaana biwaalidayhi ihsaana waqfid lahumaa janaaxa dulli min arraxma. marka in doodahan oo kale yimaadaan oo dooda noocan oo kale la isla wadaago ama gabadha tiraahdo hooyada iima iman karto ama meelaha la dejiyo aan booqano ama waxyaaba noocaasa dooda noocaas oo kale la fura waxay ku timid markuu guurkii halaabay oo dabcan doorashadii guurka iyo dhismihii aqalka iyo kulli ay noqdeen baylaha iyo yani kuwa aan wadadii saxda ahayd maanta aan loo haynin. doorashadii qaabkii gabadha loo dooranayana si khaldan maanta yani lagu doorto wixii gabadha lagu raaca la yirina aan lagu raacin, wixii wiilka lagu raaca la yirina aan lagu raacin. rasuulka alayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay dumarka 4 baa loo guursadaa. nasabkeeda waxaa loo guursadaa yani xoolaheeda, waxaa loo guursadaa quruxdeeda, waxaa loo guursadaa diinteeda. kaas wuxuu leeyahay rasuulku ku dadaal ama yani midda diinta buu ku talinaya in la guursado rasuulka sallallahu alayhi wasallam. ragga sidoo kale diin baa lagu xiray. rasuulka alayhi salaatu wasalaam yani xadiiska lagu warinayo wuxuu leeyahay yani ninka diintiisa iyo akhlaaqdiisa, qofka diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tihiin oo aad u aragtaa inuu diin iyo akhlaaq leeyahay, gabadhiina u guuriya u diidina. ninkiina diin baa lagu xiray, gabadhiina diin baa lagu xiray. maanta waxaa umalaysaa wax laisku xulanaya inaynan yani diin ahayn. taasina waxay keenaysaa maadaama aan gabadhana diin lagu xulan wiilkiina diin lagu xulan ee waxa laisku xurta ay tahay waxyaaba hoose oo dee iska yaryar sidoo ama qofku uu qurxoon yahay iyo qofku hanti ma haystaa iyo waxyaabahaas ay tahay. yani waxay imaanaysaa ugu dambeyn dee markii maalmihii qurxoonaa iyo dee 4 beri qosolka lasoo dhaafo in hawsha ay meel xun ku dambayso ama deeqa lugaha la gasho. dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed sodohdu position weyn bay kaga jirtay ama meel weyn bay kaga jirtay. sodohdu waxay kaga jirtay waxyaabaha kale ama qaraabada kale ama ehelada kale runtii waa looga xaqburin jiray, wayna ka sarreysay. aad baa loo qiimeyn jiray, aad baa loo ixtiraami jiray, aad baa loo soo dhaweyn jiray, aad baa yani loogu dhimrin jiray sodohda. Soomaalidu waxay leedahay sheeko Soomaaliyeedyo baa jira badan oo inta badan xulashada wiilka iyo xulashada gabadhaba laga sameyn jiray. tusaale ahaan haddaan kusoo qaato gabadha markii hore gabadha marka la xulanayo waxyaaba lagu xushaa jiri jirtay. tusaale ahaan ama xujooyin ama gabadha ama wiilka lagu xujeyn jiray. tusaale ahaan waxaa jirta xujo nin odaya wiil baa laba gabdhood shukaansaday uu shukaansan jiray. maalintii dambe uu damcay inuu guursado oo mid yani labadooda qaato wuxuu ku wareeray mid uu qaadan lahaa. oday buu tagay la tashaday awowgiisa yiri awow waxaan rabaa inaad ila taliso 3 su'aalood buu diray. wuxuu yiri gabadha labada gabdhoodba 3 su'aalood weydii 3 su'aalood tii ka jawaabtana guurso. bal hadda lama dhihin wartii qurux badan guurso, lama dhihin tii dheer guurso. 3 su'aalood tii kaaga jawaabta taas baa garaad iyo caqli iyo garasho xoogaa u yara saaxiibi taas guurso. 3 su'aalood waxay ahayd geel xaradii waa maxay, rag gogoshiis waa maxay, garow iidaankiis waa maxay. 3 su'aalood labada gabdhood tii weyneed waxaa la sheegay inay gaftay in garow weyneed, tii yarayd baa 3 su'aalood ka jawaabtay. sidaas baana wiilkii gabadhii yarayd ku calfaday uguna guuleystay u noqotay inuu ku doorto. sidoo kale wiilasha marka la xulanayo oo kale sheekooyin laga sameeyaa jirtay oo inta badan gabadhu ay wiilka ku ogaan jirtay garaadkiisa iyo garashadiisa iyo caqligiisa iyo qofkan qof yani ma yahay ku qalma. waxaa jirtay berigii hore waxaa jiray gabdhaha waa la bixi jiray oo gabadha yani Soomaalidu inta badan waad garantahay Soomaalidu waxay ahayd dad reer miyi ah magaalooyinka hadda la soo galay laakiin markii hore dadku reer miyi bay ahaayeen. gabadha marka habeenkii baa lagu soo guuraynayaa waa la baxaya. intaan habeenkii lagu soo guuray waxaa ka horeeya hadal iyo haasaabo badan iyo inta xoolaha la joogo banaanada la isku arko lagu sheekaysto yani ka bacdi iyadoon waalidku ogeyn hawshoodana hoos ka dhan tahay uu habeen wiilku iman jiray isagoo yani dhalinyaro kala wata gabadhana saas baa lagu wadi jiray.
waxaa la oran jiray gabadhii waa lala baxay. gabadha markii lala baxo ka bacdi baa odayaashii iyo dadkii is arki jireen, sidaas baa hawshii lagu dhammayn jiray. waxaa dhacday wiil nin dhalinyara baa gabar shukaansaday, muddo shukaansanayay, habeenkii dambe noqotay inuu la baxo. wuxuu soo watay nin kaloo dhalinyaro ah, gabadhii bay la baxeen. markay meel marayaan, meel dhexe reerkiina aada uga fogaadeen, baa qoraxdii usoo baxday. waagi markuu beriyey weli soconayaan oo wadadii ku jiraan, ay tiri gabadhii iyadoo fiirinaysa garaadka kala soo baxay iyo kan kale, bal labadooda kan yara garaad roon bay tii nimanyo aan quraacano, meesha la marayaan hadda ogow waa meel hawda oo cidla. marka kii la soo baxay gabadha oo gabadha watay bay walaali meel cidla baa maraynaa, waa maxay quraacda iyo waxa aad sheegaysa, maxaad ka hadlaysaa? kii kale ay yidhi war gabadhu wuxuu lama jeedo quraacdii caadiga ahayde, wuxuu la jeedaa aan cadayano oo wad aragtayo dee subaxdii markaad soo kacdo, markaad cadaysato iyo markaad cadaysan labay kale yihiin. markaad cadaysato xoogaa waxaad dareemaysaa fresh, laakiin markaad cadaysan xoogaa weli culays baa kugu jira, afkaagu waa culus yahay. marka kii kale u fasiray, xoogaa baa la socday, waa la daalay, waa la yara nastay, xilli barqankiiya geed baa la hoos fadhiistay. xoogaa markii la fadhiyey bay tiri niman yahow soo ma fiicna inaan nasano. kii baa soo booday, wuxuu yidhi waa fadhinaay, kii hadda waa kii la soo baxay, waa fadhinaay, waa maxay nasashada aad sheegaysa? yarkii kale u fasiray wuxuu yidhi nasashadu gabadha wuxuu ula jeedaa kabihii baa weli nuugu jiree, aan kabaha iska bixino. maxaa yeele qofku markuu kabaha iska bixiyo iyo markuu weli kabihiisii qabo farqi baa u dhexeeya. marka kabaha iska bixin ula jeedaa. waa la joogay oo waa la kacay. haddana xoogaa baa la socday. xoogaa markii la socday bay tiin reer baan u jeedaa bay tiri. tukay aragtay, wuxuu yidhi walaali hawd cidlama dhex maraynaa, sharqan anigu ma maqlin, waxna uma jeedi, waa maxay reerkaan iyo waxaad sheegaysa? adigu maanta ma waalatay? intaysan jawaabin baa wiilkiga kala hadlay, wuxuu yidhi reer baan u jeeda, wuxuu la jeedaa tuke baa hawadeenna iyo agagaarkeenna maraya oo yani ka qaylinaya. marka tukuhu inta badan meel uu ka qaylinayo haddaad dareento ama yani aad aragto, meeshaas waa laba midood, in meesha raqitaalo iyo in meesha reer degan yahay, waa labadaas midood. marka labadaas unbaa mid jirta, saas baynu ula jeedaa. waa loo fasiray tii saddexaad. waa la socday cabaar, markay socdeen magaalay soo galeen. markay magaaladii soo galeen, xoogaana magaalada ku dhex socdeen bay waxay arkeen dad badan oo janaaso la socdo oo qof mayda sida, bay indhaha ku dhufteen. gabadhii baa waxay tiri waxaas la wada waa maxay? ayagay weli fiirinaysaa, weli imtixaankii baa socda. mayd weeye, soo ma jeedid, qof maydaa la wadaa. markaasay tii talow maydkaas la sii wado, talow ma dhintay mise waa nool yahay bay tiri. markaasuu tu xanaaqay buu yidhi heedhe adigu horta maanta qof waalan maa la soo baxay maxaa kaasi? qofku waa ujeedaa waa mayd, intaasoo qof baa la socto, waa la wadaa, qabrigiis baa loo wadaa, ma dhintay mise waa nool yahay, maxaad uga jeedaa? noo fasir. markaasaa yarkii kala soo booday u fasiro, wuxuu ula jeedaa waraso iyo awlaad ma ka tegay qofka la sii wadaa, mise waxba kama tegin, keligiis unbuu dhintay. macnaha wax awlaada kama tegin miyaa, mise awlaad buu ka tegay? qofka markuu awlaad ka tago ma dhimana waa dhuntaa la yidhahdaa, awlaadiisii baa ka harto, magaciisii weli waa sii socdaa. laakiin markuuna awlaad ka tegin, magaciisii meesha ku haraa. marka saas bay ula jeedaa buu yiri. already tii saddexaadna tii afraadna saas oo wiilkii kalaa ku fasiray. waa la socday, wadaadkii baa loo tagayo, waa lasoo fadhiistay, meherkii bay gaartay in laysku meheriyo. markii meherkii la gaaray in la fadhiisto oo yiri wadaadkii haye hawsha aan bilaabano, oo wadaadka hawshii furfuray bay tiin anigu kan ha igu meherin, ninkan ma rabee, ninkan kale igu meheri. halkaas gabadhii waxaa usoo baxday in ninkani aysan ahayn kii iyada u qalmay, kama ayna fiirin waruuxdiisa iyo reerkiisa iyo wixiisa, iyo ma aynan eegin waxay eegtay garashadiisa iyo garaadkiisa iyo in ayada nin u qalma oo la jaan qaadi kara inuu yahay. halkaasay ka eegtay. waa sheekooyinka iyo markii hore sida dhaqanka Soomaaliyeed uu ahaan jiray. Soomaalidu dhaqan ahaan waxyaabahan oo kale qaabka ay ka ahayd runtii sodohdu door weyn bay ku lahayd bulshada. aad baana loo qiimeyn jiray, loo qadarin jiray, boos weyn bayna kaga jirtay dhismaha qoyska, ama dhanka wiilka ka socoto ama dhanka gabadha ka socoto. waxaan moodaa dhaqankiisa hore ee Soomaalida iyo dhaqanka maanta inuu aad u kala duwan yahay. nooc doontaba ha noqoto, bulshada qaybteed doontaba ha noqotee, inuu dhaqanku yani waxyaabo fara badan ay isbedeleen. aan soo qaato tix uu lahaa Yuusuf Barre, isagoo la dardaarmaya laba dhalinyaro ah, markaas qaraabo ahaayeen, midna uu adeer u ahaa la sheegaa, midna uu ilmo adeer ahaayeen, qaab noocaasan jeclahay, oo guri iyo daroor la kala yiraahdo. marka
wuxuu kala talinayaa hablaha mid ku habboon maadaama ay dhalinyaro ayagu yihiin mid ku habboon ee guurka ku habboon iyo isagu maanta haday noqoto inuu guursado mid uu jeclaan lahaa inay yani gogol iyo guri la wadaagto marka gabayga oo dheer haddaan kasoo qaato qaybta qosaysa waalidka iyo xididka iyo qaraabada iyo raximka iyo qaybta la xiriirta haddaan soo qaato tuduc yar uu kusoo qaatay wuxuu leeyahay gambadh lagu fadhiistayo midaan gaadho fidinaynin ganuunka iyo xeeryaha midaan goora laba dhiibin garcadaayadii reer tolkay taan u gogol haynin geedka laga naadinin guur aan kala aada buu yiri macnaha qaybta koowaad beydka koowaad markaad eegto wuxuu kuu sheegayaa kaaga turjumaya ama kuu fasiraya gambadh lagu fadhiistayo midaan gaadho fidinayn macnaha midda aan yani gacalka iyo yani dadka martida iyo yani ilaa markaad qoys tahay oo meel degan tahay dabcan bulshadu way u baahan tahay hal maalin baa marti kugu soo dhici karta marka qof aan furfurnayn oo aan dadkii haddii alla ku roon dad la dhaqan lahayn oo haddii alla ku qof wanaagsan oo ummadda isku haynaysa aan ahayn oo haddii alla ku roon qof aan yani u wanaagsanayn qaraabadii iyo heladii iyo dadkii iyo martidii iyo qof aan u roonayn uu ka hadlaya beedka koowaad beedka labaad wuxuu ka hadlayaa qof aan deriska u fiicnayn ganuunka iyo xeeryaha mid aan goora laba dhiibin derisku moogtay xaq xuquuq isku leeyahay xuquuqda isku leeyahay waxay tahay in yani macuunta la kala qaad yani heer ay isdhaxlaan baan gaarsiin lahaa rasuulku leeyahay salawatullahi wasalaamu caleyh marka deriskiina uma fiicna waa beedka labaad ku xusaya beedka saddexaad wuxuu ku xusayaa garcadaayadii reer tolkay taan u gogol hayn meeshan waxaan ku hoos jira marka waalidkii baan soo hoosgelinayna haddii waan ku leeyahay garcadaayadii reer tolkay taan u gogol hayn meesha waalid ma joogo ogow hooyo lama keenin aabbana lama keenin walaalna lama keenin waxaa la keenay tol haddaysan tolka u fiicnayn bule haddaynan tolka mid u fiican ahayn halkee joogtaa marka sodo halkuu joogaa walaal halkee yani positionkay joogaan waad garan kartaa beedka ugu dambeeya wuxuu abwaanku xusayaa in geedka laga naadinin guuraan kala aada qofku markay gabadhu gabar wanaagsan tahay inta badan Soomaalidu waxay tiraahdaa gabar lama guursado waxa la guursadaa reerkeeda gabar lama guursade waxa la guursadaa reerkeeda marka guursanayso ama gabadhu wiil ha guursato ama wiilku gabar ha guursade markuu guur imanayo waxa la guursanayo shakhsiga ma waxa la guursanayo waa cidiisa weeye marka gabadhu waxaan uga jeedaa gabadhu markay tahay gabar yani aad u wanaagsan yani dad la dhaqan leh yani wala isu sheegaya heer waxay gaaraysaa tolweynuhu isu sheego inuu qoftaas qof wanaagsan loo qiro wanaageeda taasoo ku xusaya abwaanku marka haddii aan soo duuduubo ama aan soo gebagabeeyo muuqaalkan sodohda cadow haddii laga dhigto cadow bay noqotaa weliba sodohda maahane qayb kastoo bulshada ka mid a walaalka hadduu cadow ka dhigato cadow buu kugu noqon sodohda haddaa cadow ka dhigato cadow bay kugu noqon sodoga haddaa cadow ka dhigato cadow buu kugu noqon ciddad cadow ka dhigata horta cadow bay kugu noqotaa waa qodobka koowaad ciddad gacal iyo sukeeye ka dhigatana gacal iyo sukeeye ku noqotaa ma aha waxaan u gooni yeelaya ama u gaara sodohda tan kale arinta inantani ka dhawaajinayso bal hal mar isla dhegeysan waan ixtiraamayaa laakiin sodohdayda gurigeeda joogto maxay guriga kasoo doonaysaa kana ana laygu qabaa diinta iyo dhaqanka mid kama jirto laakiin hooyadu waa ibtilada guriga ridisaba arinta inantani ka dhawaajinayso u fiirso hadalkeedu waxaa ku jirta sodohdu waxayba sababaysaa kala tag ama furiin bay sababaysaa marka horeba gabadhu haddayba saas furiin uga baqayso oo ay dhab tahay in yani gabadha markaas ay furiin ka baqayso hooyada ha wanaajiso furiin gabadha ka baqaysaa sodohdeed bay wanaajisataa sodohdeed bay quruxsataa maxaa yeelay sodohdu waa hooyo waxaa dhacda in inta badan lamaanuhu ayaga isqabaa wiilka ama gabadha ayagoo dhexdooda markay isku dhacaan oo yani xoogaa isxungurufaan oo xoogaa yani labadooda isi yara qaniinaan in gabadhu ay wiilka u saarido ay tiraahdo wiilkan hooyadiis baasaa yeeshay sodohdii labadoodiiba dhexdooda isqabsanaya marka gabadhii iyo wiilkiiba isku dhacaya markay isku dhacaan wiilku wuxuu eedaynayaa gabadha hooyadeed baa igu dirtay bule gabadhuna waxay leedahay wiilkan hooyadiis baa igu dirtay hooyooyin aan waxba arrinta kala socon iska masaakiina oo waxba arrintii ka ogeyn baa waxaa lagu qabsanayaa male walaa taziru waasiratun wisru ukhra qofna dembi uunan lahayn qof kale looma saar qof dembi leeyahay qof kale u saarta dhibteeday leedahay waa arrin culayskeeda leh weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min addanni
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم إن بعد الظن إثم ظنك إيا ملاها قاركيس دنبي وين دنبي وقو سببيا مركا انتاد ملايسو adoo noqsodoodii waxba ka maqlin ayadoo ku xamalaysa aadan arkin ayadoo yani kugu diraysa ninkaaga aadan arkin waa la iiga soo sheegay sodohdii baa waxaa la ii sheegay inay dhahaysay wiilkaygii baa yara caatoobay bay lahayd maxay lahayd wiilkaygii baa maalmahan quraac looma sameeyo miyaa waa dareemi kartaa waa danni iyo male ma fahmaysa marka arrimahaasoo kala yimaadaan gabadha ahayd dhexdeeday xirataa waxay ka shaqaysaa sodohdeeda waxaas looga sheegayo wanaageeda qofka hadduu xumaan kugu sameeyo wanaag baa loogu bedelaa qofka xumaan ma sii wadi karo qofka hadduu intuu ku xumeeyaad wanaag ugu bedeshaa waa adag tahay inuu qofku xumaantii kuugu celceliya adigoo wanaag u samaynaysid adoo biri u samaynaysid sodohda kaba soo qada inay cadow kugu tahay cadowtinimadeeda adigaa waxaad u bedeli kartaa jacayl adigaa jacayl u bedeli kara iyadu waa waalid adiguna walad baa tahay maadaama ay saas tahay adigaa waxaa lagaa rabaa inaad soo dhawaysato inaad kalgacayl tusto inaad jeceshahay inaad tusto inaad la sheekaysato inaad la saaxiibto waa hooyada oo kale marka adaa lagaa rabaa يعني دوركي اللي قربي يعني ولد دوركي اللي قربي ولد محل قربه مركو يدي ولا صوب برباريا مركو وين هذا إساق محل قربه إنه بوسكي برباري توارد كقرب إلا وحبة بقى لسوق لي إساقي بالربع إنه يجوده حنو قد جيدا هو يدا هذا كل شيء بيكون من نقطة إنسان تلقوا مهرية صدقها ويلكو يديس بيكون من نقطة إنسان هو يدا هذا كل شيء وكل يكون من نقطة إنسان وإن دولار دخلت سيدة هو يدا ولا دعميس وإن دسودو يسا سيدة هو يدا وسودو وينيس وإن تسيسا منتظر هو يدا سينيس وإن دولار هذا الشغاب كعد هو يدا ولا هالليس وإن مركز سوقريس وقول العادة سيدة هو يدا وقول العادينيس حكتي ينقفوا ونكا هو يديس نكان أتشاشا هاي كل qofta halkaa soo la ekeysiisay waa isagay leedahay ilaahay xaqa hayna waafajiyo xaqa allah inagu sugaan leeyahay ilaahay annaga iyo waalidiinteen baa inoo dambi dhaafo mawduucan halkan buu ku egyahay waaniga walaalkeen Saacid Xaaji Aadana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh